nagu xiran waxaan leenahay xitaa haddii janaalkan sidan uu hawada uga baxo oo uu baaswarka dii waayo oo uu nasii waayo isagay u taalaa anaga laakiin wax tallaabo isaga dhinaciisi u qaadayna ma laha laakiin xaqa walaalihiisa day maqlaayaan hadday waalidiintiisa maqlaayaan hadday eheladiisa maqlaayaan ninka nidaami la dhaho magaca ku sameey inaa aniga youtube durdurmeedii hawada ka saartid magaca ku sameey sumcad ku yaala saasaan kuugu barto dhegeystayaal iyo daawadayaal intiini la socotay waxaa la socoteen in xiisad ay ka taagan tahay youtube-kii ugu weynaa magaalada muqdisho in hawada laga saaray laguna eedeeyey mid ka mid ah shaqaalihii ku shaqayn jiray youtube-kaasi oo loo yaqaano wiilka dhallinyarada ah ee loo yaqaano nidaami xasan toob iyo ninka iska lahaa youtube-kaasi oo gulfaan la yidhaahdo oo ku nool waddamada yurub ayaa labadooda si wada jira u xaqiijiyey inuu nidaamiya ninka la yidhaahdo uu jabsaday asagana uu ahaa dad ka mid a dadka baasweerka hayay arrinkan ayaa noqotay hadalhaynta ugu badan baraha bulshada maadaama uu ahaa youtube-kaasi youtube aad saameyn u leh bulshada wiilka lagu magacaabo ama waryaha lagu magacaabo xasan toobna uu yahay nin saameyn ku leh bulshada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho xasan toob ayaa lagu xasuustaa inuu caawiyey dad aad iyo aad u fara badan oo masaakiin ah oo darbi jiif ah intuu soo qaaday ayuu nolol cusub geliyey kadibna qaarkood ku jisaareen qaarkoodna ay ka tageen xasan toob ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falka lagula kacay uuna kula kacay saaxiibkiisii gacanta midig ee nidaamiye inkastoo aan xaqiiq u haynin eedeynta xasan toob uu ku eedeeyey wiilkaasi loo yaqaano nidaamiye oo asna ka mid ahaa dhallinyarada ugu saamaynta badan magaalada muqdisho warkii jiraba soomaalidu waxay tiraahdaa cakaaru imaan waxaa socda dadaallo lagu soo celinayo janalkaasi youtube-ka loo yaqaano durdur media production iyadoona ay dadaallo badan ay wadaan dad badan oo soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda soomaaliya ku suganba xasan toob oo aad iyo aad u caraysan ayaa si toosa u sheegay in nidaamihii uu ahaa ninkii jabsaday mahmaahna usoo qaatay sacna sacda iyo weydha maxaa kulmiyey xalay markuu ka tegey uu ka baxay iyo subaxiiba iyadoo kasoo wareegan 24 saacba hawada laga saaray uu ka baxa maxkamadda markaan tagno oo haddii annaga cadaynihii anaga marka la jabsaday fiiri waxaa la yidhi warafkii weydha maxaa kulmiyey warafka iyo weydha shaqaale baxaaya shaksi kaa tagay iyo shaksi midda kale labo amnigaadi ilaasho waxa la yidhaha ku sheegaya amnigaadi iyo noloshaadi adiga ilaasho horta waxa allah dad dilo ilaaha dad dilo arwaa dadka inay aad iyo maqlaan kula nafsin daa'iqatul mawt qofka xilligiis dhamaato uu dhimana laakiin marka wax badan inaan sheeg ma rabo markii shaqada uu ka tagayay nidaamiye abdoon uu iska baxay problem ma laha laakiin nidaamiye ku shaqada ku tagayay guriga ayuu imaaday guriga markuu imaaday isagoo askari wata ayuu noo imaaday guriga markuu imaaday dharkayga inaan qaataa rabaa uu yidhi dharka haddaa qaadanaysa askariga kula socda muxuu yahay annaga magaalada askar xafiis aan lii ka siinin male saada ujoom ugu sareeyo taliyaha gobolka ma ay ka saa xasan tooba dil dhow ay yaqaana micna hadda maanta xafiiskiisa aan tago dhowniyo dhibkaasaan ii geysta aan dhaho bis inaan liga celinayn waa huba micna meesha ugu yar waay madaxweyne farmaajo xafiiskiisa haddaan tago inaan lii celinayn waa ogaa micnaha magaciygii wejigay waa la yaqaana ma fahantaade micnaha wax walba ani samayn karaa meel kastaan ku dacwo karaa oo buusan oo miskiin ah oo haddii wixiisa la dhaco shirkadu waa waxa la dhacay wax hal qof uu leeyahay maaha waa wax koox ay leeyihiin bulshaan qad ku jiro anaga iyo tiim kale marka wax ma ahan oo maxaa la dhahaa uu qof uu leeyahay oo la bedeshanayo muuqataa youtube-kaasi ayaa waxay u badan tahay in la tirtiray gebi ahaantiisba maadaama qofka hadduu baasweerka haysto uu tirtiri karo gebi ahaanba youtube janalka isagoona broseska u mari doono sida caadiga ah loo maro dhanka kale ilo xoogaale ku dhow ninka lagu eedeeyey nidaamiya ayaa isna sheegay inaysan arrinkaasi jirin laakiin ay jirto in community guideline waxa la dhaho iyo strike ay dhowr mar ku dhaceen durdur media iyadoona arrinkaas arrin macquul ah kadibna mar kale ay ku dhacday saasna hawada looga saaray arrinkaas oo ah arrin kaloo macquul ah oo youtube-ka uu tirtiraa haddii mar 3 dacwo laga saaro dacwada koowaad waxa weeyaan waa strike in lagu qabto ama sida caadiga strike 3 qof xuquuqdiisa ku xadgudubtid oo muuqaaladiisa isticmaashid adoo fasax kaysan kadibna ku dacweeyo kadib youtube-ka laga saaraa
fideogaasi haddana mar labaad hadduu qof kale ku dacweeyey sidoo kale hal bil gudaheeda 3 xabo kugu dhacdo waa kugu dhammaatay awooda laga saaraya mid labaad waa community guideline dambiye aad gashay sida qof inaad ku caysay inaad dhibaato qodad u geysatay waxyaabo aan fiicnayn inaad soo dhigtay waxyaabo oo haweenka micnaha lagu dulmaayo carruurta lagu dulmaayo ama shakhsi kale lagu dulmaayo ama waxyaabaha aan fiicnayn aflaamta xunxun waxyaabahaas hadda soo dhigtana sidoo kale community guideline ayaa lahaa oo waxaa ku qabanayo sharciga sidoo kale bulshada waxaysan raalli ka ahayn oo wacyigooda diintooda dhaqankooda wax u dhibaya haddaad soo dhigtidna sidoo kale mararka qaar community guidelinekaas kugu dhaca way dhici kartaa in durdur media community guidelinekaas ku dhacay sida nidaamiyuu sheegay community guidelinekaas hadduu kugu dhacana way ka xun tahay strike ayaa fiicanba maxaa yeelay community guidelineka waxaa jabisay shuruucda u yaala youtube-ka laakiin copyright strike waxaad ku xadgudubtay shakhsi ka mid ah dadka isticmaala youtube-ka oo xoolihiisa ayaa qaadatay si amar la'aana taasna waxa laga soo kaban kara waaye copyright strikeaas inta badan wuxuu dhacaa 3 bilood ayuu dhacaya halka xabo haddii 3 xabo ay hal bil kugu dhacaan taasaa daran oo hawada laga saarayo saasay tahay weliba rajaa leedahay qofkii kugu dhuftay strike-ga ayaa la macaamiltamaysaa si hoose kadibna uu kaa qaadaya kadibna janaalkaaga waa soo celinaya intii xasuusistay universal tv sanadii hore dhammaadkeeda ayaa arrinkan oo kala qabsatay wiil ka mid ah dadka universal u haya youtube-ka ayaa wuxuu suubiyey si daro ah ayuu dad badan copyright strike u qabtay kadibna dad badan oo Soomaaliyeed oo YouTube isticmaalo oo u badan dadka heesaha soo geliya ayaa u heshiiyey kadibna asagii strike ayaa lagu qabtay oo waxay noqotay xaaladda mid ku taa kadibna wadaxaajood laga yeeshay ayaa janaalkaasi Universal TV oo furan muddo 10 sano wax ku dhow ayaa dib loo soo celiyey maadaama ay tahay shirkadda Universal shirkad aad u weyn dadaalo badan ay gashana ay u suurto gashay inay mar labaad dib u soo celiso arrinkaasi xaasidnimadu wax fiican maahan qofka xaasidka ahna Soomaalidu waxay tiraahdaa ma bulaalo kooxdaasi xamar ka dhisan dad loo yaqaan waxay leeyihiin cadow aad fara badan dad badan ayaana cadow oo la muuqda Xasan Toob ayaa ah nin aad halabuur u ah dad badan waxay soo ogeen Xasan Toob inuu yahay inuusan YouTube kaliya inuu ahaan jiray magaalada Muqdisho saxafiyiin kamid ah saxafiyiinta ugu caansan waliba idaacadaha localka ah iyadoo meelo badan oo ka soo shaqeeyay idaacado badan oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho oo ninkaas uu ka soo shaqeeyay dhanka kale waxbarashadiisa ilaa heer wuxuu gaaray master degree-ga sida la wada ogyahay dadka qaarna ay fahansan yihiin YouTube-ka lacag baa uu ka suubiyaa Xasan Toob lacagtaas uu ka suubiyaa wuxuu ku maareeyaa qoyskiisa dadka la shaqeeyana wax uu ka siiyaa sidoo asagaba dhowr mar afkiisa ka sheegay arrinka foosha xun ayaa ah in qof iska shaqaysanayo in ganacsigiisii laga baabi'iyo oo si xun loola dhaqmo weliba lala tirtiro janaalkiisa iyadoona arrinkaasi ay tahay arrin naxdin leh arrinkan hadduu sii socdana dad badan uu saameyn doono oo mararka qaar laysku adeegsan doono dhegeystayaal marnaba meesha waxaaynu ka saarayn eedaynta noo soo jeediyey nidaamiye ma xaqiijin karno inay arrinkaasi run tahay maadaama asaga uusan weli isdifaacin oo afkiisa ka hadla laakiin dad ila ku dhow ay noo xaqiijiyeen in uu asaga ku andacooday in copyright strike iyo community guideline ay ku dhaceen janaalkaas arrinkaasi oo arrin lagala yaabay ay noqotay hadalhaynta ugu badan baraha bulshada ay noqotay Xasan Toobna uu afka furtay ilaa iyo xataa uu hanjabay uu yiraahday dad badan magaalada saaxiibo ku leeyahay oo dawladda ka tirsan oo loo adeegsan karaa laakiin markii dambe uu ku soo gabagabeeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa iga kaafinaya oo ninkaasi iga qabanaya arrinkaasi oo ah arrin haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu daayo ama qof aad dulmisid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo qofkaasi la dulmiyay xijaab uma dhaxeeyo oo ducadiisa toos ayaa loo aqbalaa cid kastoo imaqlayso hadalka waa la dareemaa saaxiibkay wuxuu leeyahay mar aan ogtiga maanta aan tagnay oo saldhigga tagnay wuxuu leeyahay adaa hawada ka saaray janaalkaagii waxaa rabtaa in bixitaankii aa ku burburis brother qoray Ismaaciila ka tagay shirkadda uma istaagin balbalaara ka tagtay shirkadda uma istaagin hal abuurkaygii hal abuurka bulshada shaqeynaya marka micnaheedu tahay haddii uu isaga ka tagay nidaamiye uu durdurmeedii ka tagay micnaha maya Xasan haddii aniga baxayaba durduriyaysan guulaysan miya hawadan ka saara miya adeer taas ma suurtooweyso xitaa haddii janaalkaas uu hawada ka baxo haddii sharciga wuxuu nagu soo qaado oo la dhaho waa wixii saas inad dhaho waa dacwooyina dacwadii aad way socotaa meel fiican ay maraysaa
حق هل إيران وتا محكمة دي مهمة محكمة ديرتا هل نارتو أدير نارتو ونقصر البحور لكن هل إيران حق هذا قف بني آدم أككشت على معها هنجبات معها بريه معها وعاني كهالله والفرم كهالله لماذا هذا المعنى أنا على معها بريه معها إذا وين إن ما دام يوتيوب قبل الإنسان على أبوركي وحلينا دردر ميديا سديتن اللي مليون 2 years وحكير علينا سديتن 7 مليون أبو قرن على أبورك سالينا هاي شرفتها سالينا هاي وحبنا إياها أرد عمر ربي dadka anaga la daawado dadka anaga nagu xiran waxaan leenahay xitaa hadii channelka sidan uu hawada uga baxo oo uu daswarka dii waayo oo uu nasi waayo isaga u taala anaga laakiin wax talaabo isaga dhinaciisi au qaadana malaha laakiin xaqa walaalihiisa day maqlayaan haday waalidiintiisa maqlayaan haday eheladiisa maqlayaan ninka nidaamii la dhaho magaca ku sameey ina aniga youtube durdurmeedii hawada ka saartay magaca ku sameey sumcad ku yeela saasan ugu barto laakiin أنا يرنتهم كشيء ولا لا والدين ده وقت استنان وقت اللعبة عن قاعدة دون مالها وأنا هن إن عن إلهي إنه كوين يقف والبقنا إلهي قدين عقوبة وصبح قف عقوبة قالوا وركي وحديدتين ورعستوب مارتي وحشي جاي وهكذا عقوبة وصبح هذه جفت أرنكاسي أو دبعتها لغلا كعي وننكاسي حسن توب وحافعنا لهاد القفكي أوجستي ka raali galiyo maadaama ay tahay arin aad u xun diinta islaamkuna aysan qabin maxaasidnimada iyo qof inaad hagar ama xaasidnimo shirqool aad u xun meel uu irsaaqadiisa ka raadsanayay xumaan sabab wuxuu ku raadsadaba inaad ka bandadid oo adoo adeegsanaya qaab qiyaanaha ama hore inuu ku aamiday dhabarka ka togatay wax fiican maahan dhageystayaal walaalkiin maxamed alfa oo warbixintaasi idin soo gunaanadayay wixii warar kale ku soo kordhana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa fadlan hadaad jeceshahay ama dulmiga aan ceebtahay muuqaalka sii gudbiyo insha Allah taala salaamullaahi calaykum